Soomaaliya waa qaran ku yaala gobolkan Geeska Afrika isla markaana ku teedsan banaansho u siiyay inuu hantiyo mid ka mid ah xeebaha ugu dheer qaaradda Afrika. Kheyraadka, macdanta iyo xoolaha nool ayay ku takeeyaan dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay ahayd qaran dhalinyaro ah oo curdan ah markii ay xornimada qaadatay 1960kii. Dad badan waxay u arkayeen inay noqon doonto dalka Afrika ugu horreeya ee horumar sameeya, sababtoo ah Soomaaliyeedu waa qowmiyad hal af ah, hal diin iyo hal dhaqan wadaaga. Laakiin sida taariikhdu muujisay, burburkii dhacay dabayaaqada sideetameedyadii iyo dagaaladii sokeeye ee qarxay 1991 kadib wuxuu dalka ka dhigay meel aan weli ka bixin qalalaase siyaasadeed, dhaqaale iyo amni. Ma jirto dowlad Soomaaliyeed oo si dhammaystiran u noqon karta dowlad macno leh oo ka saartay helinka qaran macno leh ee haykal dowladeed, maamul shaqaynaya iyo qaran amnigiisa dhowra oo lagu tilmaami karo dowlad rasmi ah. Balse su'aasha uu halbeegsanayo mawduucani iyo muuqaalkeenani waa sidee loo waayay qaran macno leh oo Soomaaliyeed. Muuqaalkeena maanta ayaynu ku soo qaadan doonaa u dhawaansho ahaan 5 sabab oo ilaa hadda laga caalwaayay qaranka Soomaaliyeed, isla markaana aynu uga weynay inaynu helno dowlad macno leh, haykal dowladood oo shaqaynaya iyo qaran adduunka la tartama asaagiisna la ficilsamaa. Qodobka koowaad ee inoo diiday inaynu helno dowlad macno leh amase in Soomaaliya dhisato qaran macno leh kadib burburkii waa burburkii dowladdii dhexe. Dabayaaqadii 1980yadii nidaamkii Maxamed Siyaad Barre wuxuu noqday mid qurunsaday, ku dhisan caburin, eedaha qabiil iyo musuqmaasuq. Markii shacabka iyo jabhadihii hubaysnaa kacdoon sameeyeen, nidaamkaas wuu dumay. Laakiin halkii laga dhisi lahaa nidaam cusub, waxaa dhacay dagaal qabiil ku dhisan. Hogaamiyaashii mucaaradka ay u kala jabeen, waxaa meesha ka baxay xadhiggii dhexe ee qarankaas oo isku haya nidaamka dalka. Tani waxay aasaas u noqotay is-aamin darrada Soomaalida oo mar kale iyo qaran kale oo Soomaaliyeedna la waayay. 2. Qabyaalad iyo hogaamiye kooxeedyo. Markii ay dowladdu dhacday, qabiil walba wuxuu isku arkay inuu iskiid u noolaado. Waxaa dhashay waxa loo yaqaano afka Ingiriisiga warlords ama hogaamiye kooxeedyo oo magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ku kala qaybsamay dhul, isla markaasna kala qaatay deegaano Soomaaliyeed oo midaysnaa, una seefahana iskugu qaatay qabiil. Xukuumad dhexe oo awood lehna ma jirin. Qabyaaladda oo ahayd cudur qarsoon ayaa markaas si buuxda u qarxay, waxaana lagu bedelay sharci la'aan iyo kala go' qaran. 3. Faragelinta shisheeyaha. Soomaaliya waa dal istaraatiiji ah oo ku yaala badda Cas iyo badweynta Hindiya isku xidhkeeda. Markii dowladnimadu dhacday, quwadaha shisheeye ayaa mid waliba dana ka raadsaday. Mararka qaar waxay taageereen kooxo, mararka qaarna waxay carqaladeeyeen isku day kasta oo dowlad lagu dhisi lahaa. Tusaale ahaan, heshiisyadii dibadda ee lagu qabtay ee dib u heshiisiinta badankood waxa ay noqdeen kuwo shisheeye ku ciyaaraan danahooda, halka Soomaalidu aysan haysan madax bannaani go'an, isla markaana aysan Soomaalidu helin kashadi isugu habayn qaran ah oo ay uga wada hadlaan masiirka dalkooda. 4. Kala qaybsanaan siyaasadeed. Waxaa dhacay dirsharar badan oo dib u heshiisiin ah Djibouti, Kenya, Itoobiya iyo meelo kale. Shirka mid walba wuxuu u dhalay dowlad ku meel gaadh ah, laakiin dowladahaasi ma lahayn awood dowladeed oo dhab ah. Sababaha ugu weynna waxay ahaayeen hogaamiyaashii oo aan rabin inay awoodda dhabta ah dhisaan, qabiil walba oo doonay inuu helo saamiga ugu badan, iyo kalsooni darro ka dhex dhalatay bulshada. 5. Dhaqaalaha iyo maamul la'aanta. Dowlad la'aanta ka dhalatay Soomaaliya waxay abuurtay fursad cusub oo ay ganacsato iyo kooxo hubaysan ku yeeshaan awood dhaqaale. Dekedaha, garoomada iyo cashuuradaha waa la kala qaybsaday. Dowlad dhexe oo hantida qaranka gacanta ku haysa ma jirin. Sidaas daraaddeed, bulshada Soomaaliyeed waxay ku noolaayeen nolol ku dhisan ku tiirsanaanta qabiil iyo koox gaar ah oo hubaysan, halkii ay ku tiirsan lahaayeen dowlad guud. Ugu dambayn, maxaan ka baran karnaa? Waxaa muuqata in sababaha la waayay dowlad Soomaaliyeed oo macno leh ay tahay qabyaalad aan weli laga guurin, hogaamiyeyaal dana gaar ah wata, faragelin shisheeye, kalsooni darro iyo isku turtuur siyaasadeed, dhaqaale aan dowladnimo lagu dhisin. Intaas oo dhammaantoodba u baahan in la tuujiyo maanka, loona diyaar garoobo sidii looga meedhi lahaa jiritaanka qofka Soomaaliga ah saamayntaas ka kan. Soomaaliya weli waxay ku jirtaa safar dheer oo dowladnimo lagu raadinayo, inta qabyaaladdu ku jirto qalbiga qofka Soomaaliga ah, inta hogaamiyaashu ku xidhan yihiin dana shisheeye iyo midnimo la'aan jirto, dowlad macno leh ma dhalan karto. Laakiin taariikhdu waxay tusaysaa in qaran kasta uu mari karo marxalado adag. Soomaaliya waxa ay leedahay dal firfircoon, dhul hodan ah iyo jiil cusub oo rajaynaya mustaqbal ka wanaagsan. Su'aashu waa, Soomaalidu ma ka bixi doontaa wareerka qabyaaladda oo ma dhisi doontaa dowlad macno leh jiilka soo socda dhaxlaan? Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaa muuqaalkeeni maanta. Waxa aan rajaynayaa in muuqaalkani wax badan ku bidhaamiyey, isla markaasna uu ku dareensiiyey la'aanta qaran macno leh oo Soomaaliyeed. 5 sababood oo aynu u weynay inaynu helno dowlad macno leh: isdiidooyinka siyaasadeed, ishaysiga iyo isnaca Soomaalida ee xilliganna ay sababeen 5taasi uun. Waxaan rajaynayaa
in dowlad Soomaaliyeed oo dhaqanay isla markaasna la helo jiil cusub oo Soomaaliyeed. raadinta qaran macno leh oo laabta qofka Soomaaliga ah ku kaydsani oo waxa ugu badan ee qof kasta oo Soomaaliyeed uu tamaninayo. idamka alle waxaan rajaynaynaa dowlad macno leh. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo beer oo channelka subscribe saar, muuqaalka like saar, una share garee saaxiibada si aynu iskula ogaano 5 sababood oo hoos u dhigay qarannimada Soomaalida. insha Allah waa tan iyo kulanti dambe nabad ayaan idin rajaynayaa.